Assalaamu calaykum. Waa qof aad u war badan, warkana si boosiis ah ku soo saaraya, waxaana mar walba ka muuqata tabar iyo firfircooni siyaada ah, iyadoona weliba hurdadiisu ay aad u yar tahay. Waxaana laga dareemaa faraxsanaan aan la fasiri karin. Mararka qaarna si kadiisa ayuu u xanaaqaa ama wax u dhibsadaa. Marna waxa uu la yimaadaa waxyaabo bulshada ay la yaabto, sida rabitaan galmo oo xad dhaaf ah iyo ka hadalka mawaadiic la xiriirta jinsiga iyo wixii la halmaala. Waxa kaloo qofkani lagu yaqaanaa isla weyni isaga ka dhaadhacsan, isagoona la baxanaynaasyo oo isugu tilmaamaya mid bulshada ka sarreeya. Muuqaalkeenna maanta waxaan ku falanqayn doonaa xanuunka astaamihiisa aan soo sheegay, inkastoo dad badan ay is oran doonaan waad qabtiin xanuunkan, laakiin dhammaadka muuqaalka ayaad ku fahmi doontaan qofka qaba iyo kaan qabin. Kahor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelka aadna danaynayso barnaamijyada caafimaad ee caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe-na saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. Aan bilaabo fiidiyowga. Haddii aan ugu hormariyo xanuunka loo yaqaan afka shisheeye mania, waa cillad dhimir oo aad ugu badan dunida, waxayna lid ku tahay xanuunka niyad-jabka ama afka qalaad loo yaqaano depression, oo isaguna ah xanuun dhimir kuna dhaca ragga iyo dumarka, laakiin carruurta wixii ka yar 15 sano badanaa laguma arko. Qofka qaba xanuunka maaniyada waxaa lagu gartaa kacsanaan maskaxda ah, taas oo laga dareemi karo hadalka iyo dhaqanka qofka. Waxa uu sidani noqon karaa waqtiyo gooni ah, waxaana xaaladdaasi loo yaqaanaa afka qalaad manic episode. Dadka qaar xaalad caadi ah ayay ku soo laabtaan muddo kadib, qaar kalena waxay isku rogaan xaalad niyad-jab iyo mid diiqo ah. Dadka sidaasi noqda labada xanuunba waa ay qabaan, waxaana lagu magacaabaa afka qalaad bipolar mood disorder, oo loola jeedo qofka marna waa uu kacsan yahay, marna waa uu dansan yahay. Mararka qaar waxaa dhacda in qofka xanuunkani mayiikada ama lagu magacaabo maaniyada qaba ay u weheliyaan waswaas iyo shaki, taasoo astaan u ah xanuun kale oo dhimirka ah oo loo yaqaano waali ama afka qalaad schizophrenia. Marka lagu wada arko astaamaha labadaasi xanuun, qofka waxaa jira xanuun ka dhasha oo loo yaqaan afka qalaad schizomania ama schizoaffective disorder. Muuqaalkeenna waxa uu ku saabsan yahay nuuca maaniyada kaligeed oo aysan la socon cillad kale ama xanuun kale oo saameeya dhimirka. Qofka kacsanaantiisu marka ay dhexdhexaad tahay laakiin aysan gaarsiisnayn mania waxaa loo yaqaanaa afka qalaad hypomania, oo iyaduna weli cillad dhimir ah. Waxaa jirta in dadka qaarkood alla ku abuuray firfircooni siyaada ah iyo niyad kacsanaan ay la socoto faraxsanaan joogto ah. Taasi waxaa loo yaqaanaa afka qalaad manic personality, waxaana laga wadaa in qofkani uu leeyahay dabci sida maaniyada oo kale ah, laakiin aan cudur ahayn. Tan ayaa keeni karto in dad badan ay isaga shakiyaan xanuunkani maaniyada markii astaamihiisa laga sheekaynayo. Qofka ayaa la oran karaa waa uu qabaa xanuunkani maaniyada markii uu galo xaalad kacsanaan oo aan lagu aqoon jirin, xadkana ka baxsan, gaartana heer ay cunnadiisa iyo hurdadiisa ay saamayso, joogtana noqotay maalin walba muddo usbuucah uu yaraan. Markaasi ayaa la dhihi karaa qofkani waxa uu galay xaaladda maaniyada, waana in markaa tala dhakhtar la raadiyaa, maadaama qofkaasi uusan dareensanayn inuu xanuuni jiro. Tusaale, Xaliimo waa gabadh ehelkeeda la nool, iskuulna aada, ciddeeduna aysan wax cillad ah ku ogeyn. Maalin bay iskuulka ka timid, kadib gurigii bay dhaqitaan iyo nadiifin ku bilowday. Alaabtii iyo dharkii ayay wada mayrtay, kadib intaa kuma aysan ekaane gaari bay raacday oo cid ay qaraabo ahayeen bay intii oo kale u soo samaysay inta gaariga ay sii saarnayd.
qof walba oo gaariga saarnaa waa ay la sheekaysatay markii ay soo laabatayna qof daalan lama moodo oo weli sheeko iyo qosol bay wadaa. weliba gabadh xishood badan bay ahayd, laakiin waxay ka sheekaysay waxyaabo laga xishoodo qofkani oo kale. ehelku way dareemaan inay wax ka qaldan yihiin, laakiin bulshada kale hadalka qofkani waxay u arkaan sheeko iyo madadaalo iyo mid dhaqan xumo ah. laakiin waa in qofkani dhakhtar la gaaraa inta xaaladdu aysan ka sii darin. taasi waa hal tusaale, laakiin micnaheedu ma ahan in qof walba sidaasi sameeyo. siyaabo kale oo ay ku imaan karto ayaa jira. waxaa kaloo ka mid ah qof 24 saac internetka ka sheekaynayo oo aan daalayn, oo hurdo iyo hoyaadba ka tegay, cunno iyo nasiinana aysan ka maqnayn, salaadna sidoo kale, maalinba meel taagan, ciddiisuna aysan ka warhayn, oo safare aan laga warqabin u baxa sabab la'aan. tanna waa tusaale kale. ehelkuna way fahmi karaan xaaladda qofkan inaysan dabiici ahayn oo ay wax iska beddeleen. astaamo lagu garto kacsanaanta waalida ah ee loo yaqaan maaniya waxaana ka mid ah isla weyni iyo isbuufin xad-dhaaf ah. qofka oo aaminsan inuu dadka kale wax dheer yahay, laga yaaba inuu la baxo magacyo dadka la yaabaan sida boqor, wasiir, ugaas iyo wixii la mid ah. qofka oo aan u baahan hurdo 3 saac oo kaliya haddii uu jiiftana wuxuu dareemaa inay ku filan tahay, isagoo firfircoon ayuuna soo toosaa. 24 saac oo xiriirana inuusa jiifan ayaa laga yaabaa. hadal iyo sheeko xad-dhaaf ah oo weliba cadaadis iyo xawaare ku socda ayuu leeyahay. hadalka oo aan mawduuc lahayn, fikraddii ku soo dhacdaba u wareego isagoo sheekadii hore aan dhammaystirin. in qofka la maaweelin karo, lagana weecin karo hadafka hadalkiisa iyo meesha uu hadalka ula jeedo. dhaqdhaqaaq xad-dhaaf ah iyo wareegis xaafadaha ah ama safar u bixis lama filaan ah ayuu leeyahay qofkani. isxakamayn la'aan iyo xishood yari. qofka wuxuu si yaxyax la'aana uga hadlaa galmada iyo wixii la xiriira. qofka wuxuu si yaxyax la'aana uga hadlaa galmada iyo wixii la xiriira. dareenkiisa dhinacaas ku saabsanna ma xakamayn karo, tan oo keeni karta inuu khaladaad ku dhaco, dembina lagu soo oogo. haddii ay haweenay tahayna qofka xanuunsani kuma sii jirto, maxaa yeelay ciddeedu waxay ka warheli karaan iyadoo uur leh. arrintanna waxaa loo yaqaanaa afka qalaad disinhibition. faraxsanaad dhalanteed ah oo qofka ay ka muuqato farxad aan fasiraad lahayn, ama aysan u qalmin xaaladda uu ku sugan yahay markaasi. arrimahaas waa laga wada siman yahay, laakiin sida aan soo sheegay dad bay si aayar ah uga muuqataa, waxaana qofkaasi la dhahaa hypomania. welibana waa cillad xanuun ah, laakiin qayb ka mid ah haddii aad leedahay ayna tahay wax weligaa dabiici kuu ahaa, isna xakamayn kartid. taasi cudur ma ahan, waa dabeecad alla kugu beeray, waxaana loo yaqaanaa manic personality. dabeecaddan haddii ay ii suurto gasho muuqaal kale ayaan kaga hadli doonaa, oo waxyaabo badan oo ay dadkani ku fiican yihiin ayaa jira. shaqooyinka qaarkoodna waa la raadiyaa dadka dabcigan leh. laakiin qofka xanuunsan xaaladdan dabci uma ahan, oo mararka qaar ayuu galaa wuuna ku talax tagaa, ismana xakamayn karo. muddo markuu sidaa ahaadana niyadjab iyo diiqo ayaa ku dhaca, waana la waayaa markiisa. mararka qaarna wuu soo degaa oo caadi buu ku soo laabtaa. sababta xanuunkani kacsanaanta aan xadka lahayn ayaan la aqoonin, laakiin waxaa la ogyahay in maskaxdu ay soo dayso dhacaanno sidii lagu yaqaanay ka badan. dawada xanuunkan loo qaatana dhacaannadaas iyo dhambaaladaasi maskaxdu dirayso ayay xakameeyaan. dawayntu waxay ku xihan tahay xanuunka qaabka uu ku yimid, in cillad dhimir oo kale ay la socoto, iyo heerka uu gaarsiisan yahay. dawooyin loogu talagalay oo loo qaato ayaa jira cudurkan, laakiin waa qasab in qofku uu la kulmo dhakhtar dhimirka ku takhasusay si qofka loo qiimeeyo xaaladdiisa, ehelkana loo waraysto si looga ogaado wixii uu soo maray, wixii hadda uu ku jiro iyo sababaha keenay.
muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, hana iloowina subscribe saarta channelka, gambaleelkana aad furato, commentiskana igu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. fiidiyowga inoo xiga insha Allah.